hadowna minka shay fiican ma ahan ilaahayna wuu xaaraantimeeyey subxaanahu wa tacaala. maalin nebiga ayaa qof meel u diray. ninkii waxaa loo dhahay qabiiladaasi bax sakada iiga soo qaad. mar allaala markuu baxay wuxuu isdhahay dadka amay ku dilaan, dadka amay dhibaato ay ku geystaan ayuu isdhahay. ninkii asigoo meesha tagan ayuu maadaama iska soo laabtay. nabiga sallallahu calayhi wasallam ninkii wuxuu dhahay rasuulkii allah sakadiina way iisoo diideen, inay idilaan ayay u dhowaadeen. nabiga markuu hadalkaasi maqlay wuxuu dhahay iisoo diyaariya asxaabtayda, dadkaa sakada soo diiday duulaan ayaan ku qaadaynaa. mar allaala dadkiina markii ay maqleen nabi muxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa nin idin soo diri, sida maadaama iniga sakada nilka qaado. markii ay maqleen ninkii waxay u diyaariyeen sakadii nabiga loo dhiibi lahaayay, asigana waxay u diyaariyeen martaqaad iyo waxyaalahaas ayaa maadaama loo diyaariyey. laakiin nasiib wanaag asigii waa soo laabtay. nabigan hadalkan ayuu ku dhahay. nabiga sallallahu calayhi wasallam asigana wuxuu dhahay asxaabtayda ii diyaariya, dadkan duulaan ayaan ku qaadaynaa, sakada dadka soo diiday duulaan ayaan ku qaadaynaa ayuu dhahay nabiga sallallahu calayhi wasallam. isla markii ilaahay ayaa u soo waxyooday, waxaana loogu soo dejiyay yaa ayuha aladiina aamanuu, war dadka iimaanka lahow yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqan, nin faasiq ah hadduu hadal idinkeena ha rumaysanina. oo maxaa ka jira hadalkaasa dhaha in jaa'akum faasiqan fatabayanuu, kala cadeysta ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. hadalkaasi wax maa ka jiro ala dhaho ayuu dhahay nabi ilaahay subxaanahu wa tacaala. in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qawman bijahaalatin fayasbixuu calaa maa facaltum naadimiin. waxa aad camal qabataan oo aad samaysaan inigoo jahli ku sugan oo gadaal dambe aad ka qoomimaysaan. mar allaala qof faasiq ah hadduuna la yimaado dhaha hadalkaasi wax maa ka jiro alla dhaha ayuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala. marka namiimka hala joojiyo, siiba khaasatan waxaa la hadlaa gabdhaha oo maadaama ama naagaha dadka isku dirdiraan. ilaahina ka cabsada subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu jecel yahay dadka muttaqiinka oo in badan maadaama u soo laabtaan ayuu ilaahay uu jecel yahay. waxaan idin lahaa dadka iska daaya, dadkana iska dhaafa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii as idinka reebo ka reebtooma, wixii ilaahay as idin amrana maadaama yeela. ilaahayna ka cabsada subxaanahu wa tacaala.